dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo ku dhow inay dagaalamaan iyada oo waliba kaashanaya ciidamo kala duwan oo gudaha jabhadaha kala duwan ee wadanka Itoobiya markaasi ka dhisana Eritrea diyaarado dagaal ayay kicisay oo ay habada u dirtay isla Etoobiyana isla sidaasi oo kale dowlatus military ayaa lagu soo bandhigay gudaha wadanka Eritrea isla gudaha Etoobiyana isla sidaasi oo kale maalmo ka hor magaalada lagu magacaabo Hawaasa iyadana waxaa lagu soo bandhigay dowlatus military oo xitaa ra'iisul wasaarihii Itoobiya Abiy Ahmed uu ka sheegay inay ku filan yihiin guud ahaan geeska Afrika marka laga tago Itoobiya xaaladda ayaa qasan jabhadihii gudaha wadanka Itoobiya oo dilaacayna waa ay sii xoogeysteen maalin walbana waxaa la dilayaa askar dowladda federaalka ah ee Itoobiya ka tirsan iyadoo ay jireen waan iyo wadahadal toos ah heshiiskii Pretoria iyadana waa uu burburay oo u dhaxeeyay Tigreega iyo sidoo kale dowladda federaalka arrimahaasi oo idil oo isbiirsaday ayaa xilligan ay wajahaysaa dowladda Itoobiya dhinaca kalena diblomaasiyad dhinaca arrimaha dibaddana isla sidaasi oo kale xaaladeedu waa ay adag tahay soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalada Itoobiya iyo Eritrea jabhadaha gudaha Itoobiya ka dilaacay oo iyagana qabsaday meelo badan ama deegaano badan ciidamadii federaalka oo qaarkood laga dhigay kuwa la dilo kuwa dhaawac ah oo goobta isaga baxsada iyo kuwa hubka laga dhigay oo gacanta lagu dhigay soo dhawaada haddii ay tahay markay kugu horeysay ee aadna soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan meel dheerna nala gaarsiisaan mar kale soo dhawaada aynu ku bilownay sida aad badankiin ka warqabtaan gudaha wadanka Itoobiya jabhado kala duwan ayaa isku haya Tigreega oo dhinac ah oo la dagaalamaya dowladda federaalka iyo jabhadda Amxaarada ee Faano oo iyadana ay ishayaan dowladda federaalka ah ee Itoobiya labada jabhadood waa laba jabhadood oo ay kala hogaaminayaan laba qowmiyadood oo Amxaarada iyo Tigreega waxa la warinayaa in labada dhinacba ay xilligan dagaalkoodu uu sii xoogeysanayo oo dowladda federaalka ah si toos ah ay uga hor yimaadeen marka laga soo tago inay laba jabhadood oo kala gooni u taagan ay yihiin haddana meelaha ay la wareegayaan iyo deegaanada ay qabsanayaan ayaa aad u sii kordhaya saacadihii la soo dhaafay deegaan lagu magacaabo Shaweeriya ayaa la tilmaamay inay si rasmi ah gacanta ugu dhigeen ciidamada Amxaarada kadib dagaal qaatay muddo saacado ah oo ay la galeen ciidamada federaalka ah ee Itoobiya marka la fiiriyo wax war ah oo ay ka soo saartay ma jirto dagaalada gudaheeda ka socda ee waliba jabhadaha iyo ciidamada federaalka u dhaxeeya marka laga reebo in ay sheegayso inay howlgallo socdaan kuwaas oo dhinaca dhulka iyo cirkaba ah iyadoo dhinaca dhulka howlgalladu ay ka wadaan ciidamada federaalka iyo sidoo kale jabhadahaasi iska soo horjeeda haddana dowladda federaalka waxaa dhinaca cirka ka caawinaya dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sida tooska ah u bartilmaameedsanaya fariisimaha ay leeyihiin ciidamadan kala duwan ee waliba labada dhinac kala ah waa TPLF oo Tigreega iyo dhinaca Faano oo iyadana Amxaarada ah marka laga soo tago jabhadaha gudaha ka dilaacay ee gudaha wadanka Itoobiya waxaa jira dagaaladaas khasaare xoogan oo ay sababeen ilaa heer dowladda Itoobiya ay gaarto in wadamada dariska ah mid kamid ah ay si toos ah ugu tilmaamto inay tahay dad ka dambeeya ama kuwa ka dambeeya dagaaladan tooska ah ee ka socda gudaha Itoobiya Eritrea waxaa ka soo baxaya faahfaahinno iyo sidoo kale bandhigyo cajiib ah oo ay sameynayaan ama ka sameynayaan gudaha wadankooda waxaa la soo bandhigay gaadiid tirabeel ah oo waliba ay ku jiraan taangiyaal beebayaal iyo kuwa markaasi loo adeegsado meelaha halista ah ee sida tooska ah dagaalka uga qayb qaadan kara waaba haddii ay dhacdo in dagaal uu ka dhex qarxo labada dowladood ee Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea waxaa la wariyay dowladda Eritrea in gudaha wadankeedu ay ku soo bandhigtay hub iyo sidoo kale gaadiid tirabeel ah iyo ciidamo ay sheegtay inay ka qayb qaadan karaan dagaal kasta oo kaga yimaada dhinaca dowladaha dariska la ah sida Itoobiya oo hadda ay ishayaan dhibaatooyin xoogan kala tirsanaya Eritrea waxay sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in wax walba oo dagaal keeni kara laga fogaado hadiiba ay markaasi ka fursan waayaanna ay toos u gali doonaan dagaalka kala dhaxeeya Itoobiya saacadihii la soo dhaafay saraakiil sarsare oo caan ah oo Eritrean ah ayaa loo diray xadka Itoobiya iyo Eritrea ay wadaagaan waxaana la tilmaamay inay qiimeyn doonaan xaaladda ka taagan xadka sidoo kalena la sheegay in ciidamo Itoobiyaan saacadihii la soo dhaafay lagu arkay xuduudda labada dhinac laakiin aysan sidaasi u sii badnayn oo daqiiqada kadibba ay ka sii baxeen meelaha khadka cagaaran ah ee aanan lagu arki karin hubka iyo waxyaabaha kale ee la midka ah labadan dowladood
aragtiyadooda waa ay kala duwan yihiin. dowladda Eritrea waxa ay sheegtay in haddii dagaalkaas lagu qasbo inay gasho si toos ah ay u geli doonto. soo bandhigista hubkan tirabeelka ah iyo ciidamadan tirada badan iyo sidoo kale waliba gaadiidkan waaweyn iyo kuwa yaryar isugu jira ee gudaha wadankeeda ay ku soo bandhigtay hadalhayn xoogan ayuu dhaliyay oo xitaa wadamada deriska ah marka laga tago Ethiopia kuwa kale ayaa walaac ka muujinaya, taas oo sababi karta in xitaa dawlado kale oo deris la ah Ethiopia ay ku biiraan dagaalkan, maadaama labada dhinacba horay ay u soo dagaalameen xaaladooduna ay tahay mid aan la qiyaasi karin, mar walbana dagaal laga cabsi qabo. arinta Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea ayaa cirka isku sii shareeraysa. haddaba maxaa keenay in Eritrea xilligan bandhig ay samayso oo waliba ay soo bandhigto diyaaradaheedii cirka, ciidamadeedii dhulka iyo kuwa cirka oo ay wehliyaan hub culus oo noocyo kala duwan isugu jira iyo sidoo kale gaadiid beebayaal iyo kaarayaal isugu jira, kuwaas oo ay ugu tala gashay inay ka qayb qaataan dagaal kasta oo kaga yimaada duulaan kasta oo kaga yimaada wadamada deriska ah, sida hadda ay qabto Ethiopia ay ku tilmaamtay cadawga koowaad ee Eritrea. hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay arintaas iyadoo waliba eedeyn culus u jeedisay Eritrea dhinaca Ethiopia oo ay ku tilmaamtay inay tahay wadan doonaya in dagaaladii laga soo kabsaday ay dib u soo celiso oo dadka halkaas ku sugan ee dawladaha Eritrea iyo Ethiopia oo dhawaan bilaabay inay isu gudbaan mar kale la xiro oo waliba la awoodi waayo in labada dhinac ay qoysaskooda ku kala sugan Asmara iyo Addis Ababa ay isugu kala gudbaan. Eritrea arintan waxa ay timid oo ay sameysay kadib markii magaalada Hawassa lagu magacaabo oo gudaha wadanka Ethiopia ah ay Ethiopia ku soo bandhigtay ciidan tirabeel ah oo waliba ay ku sheegtay in ay yihiin ciidamadii difaaci lahaa guud ahaan Ethiopia iyo sidoo kale geeska Afrika. sidoo kale khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Ethiopia iyo maamulka Tigray ayaa cirka isku sii shareeraya oo la tilmaamay in si weyn uu u saameeyay arinta khilaafka labada dawladood ee Eritrea iyo sidoo kale guud ahaanba Ethiopia. guddiga doorashooyinka Ethiopia ayaa shaaciyay 5 degmo oo goobaha lagu muransan yahay ama muranka uu ka taagan yahay ee Tigrayga, gaar ahaan magaalooyinka lagu magacaabo Walkeyd iyo Roya ayaana si kumeel gaar ah la tilmaamay inay u noqon doonaan goobaha Tigrayga ilaa iyo xal laga gaarayana laga joojin doono guud ahaanba doorashooyinka. degmooyinkan ayaa sharci ahaan hore uga tirsanaa gobolka Tigrayga, balse hadda waxaa maamula deegaanka Amxaarada, waxaana ay muuqata waliba isku dhac kale oo ka iman kara labada dhinac ee hadda dawladda federaalka la dagaalamaya ee Tigrayga iyo sidoo kale Amxaarada. isla sidaas oo kale guddiga doorashooyinka iyo golaha deegaanka ama golaha federaalka ayaa soo saaray warqad cadeynayso ama ay ku cadeynayaan in 5 degmo aysan hoos tagi doonin maamulka Tigrayga ilaa xal waara laga gaaro, isla markaana aan doorashooyin laga qaban doonin waqtigan iyada oo dib loo dhigay dhammaan doorashooyinkaasi. maamulka Amxaarada waa uu qaatay arinta ku aadan in uu isagu si gaar ah ay u hoos tagaan una maamulo, halka Tigraygana sidoo kale la tilmaamay in arintaas uu diidan yahay. dhinaca kale isla maamulka Tigrayga ayaa warqad kale oo guddiga doorashada marka uu soo saaray kadib warqado soo saaray arintaas oo ku aadan inay aad uga xun yihiin war-saxaafadeedka guddiga doorashadana ay ku tilmaameen inaysan aqbali doonin waliba go'aankan ilaa iyo ay ku adkeystaan in degmooyinkan ay iyagu u sharciyeysan yihiin oo ay iyagu hoos tagi doonaan. madaxweynihii hore ee maamulka kumeel gaarka ah ee Tigrayga Reeda ninka lagu magacaabo ayaa ku eedeeyay guddiga inay sii horinayaan xiisada taagan isaga oo waliba sheegay in warqada ay soo saareen aysan wax xal ah soo kordhinayn. arintan ayaa ku soo aadaysa xilli xiisada labada dhinac ay aad u sii markaasi cakirnaanayso ama u cakiran tahay. diyaaradihii cirka ee Ethiopia waa la kiciyay, Tigraygana waxa ay si wali sii wadaan howlgalkooda dhinaca dhulka ah ee ay ku baadigoobayaan inay guud ahaanba la wareegaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada federaalka ee Ethiopia ee labadan gobol ee hadda aan soo xusnay ama labadan degmo ee hadda aan soo xusnay si kumeel gaar ah u jooga. wixii ka soo koray saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markaa kugu dambeysay ama ilaa dhamaadka aad nala soo gaartay, waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto channelkeena subscribe noo saarto, saaxiibadan la soo wadaagto muuqaalkan, sidoo kalena qaybta hoose ee falada aragtida noogu la wadaagtaan.